cryptocurrency wax la yirahdo ayaan qaadanaynaa. Cryptocurrency wuxuu ka mid yahay teknolojiyada ayuu ka mid yahay. Saas daraadeed anaga marka maadaama anaga koorsadeena aan qaadanaynay oo ku saabsanaa computerka waxaan kusoo daraynaa marka cryptocurrency ayaan qayb uga soo daraynaa insha Allah. Cryptocurrency wuxuu yahay cryptocurrency-ga waa lacago digital ah oo internetka loo isticmaalo. Waxaan dhihi karaa adiga waa sida dahabka oo kale. Dahabka tusaale ahaan marka idinkugu sharaxo waa sida dahabka iyo diamondka iyo maaragtay iyo silfarka iyo qalinka iyo waxaas maaragtay camal oo kale oo internetka ku jira waay. Marka waa lasoo qataa dahabka si physical ah ayaa loo soo qataa inta meel la tago ayaa inta lasoo qato dhulka hoostiisa ayaa laga soo saartaa. Saas oo kale coins-yada saas ayaa loo soo qataa oo blockchain wax la yirahdo ayaa lagu soo qataa. Dhowr internet kumbuyuutaro badan inta la isku xiray ayaa waxaa la sameeyey in lasoo qato ayaa la sameeyaa. Dad badan iyo waxaad u baahan tahay iyo maaragtay. Marka dadaa maaragtay juhdi geliyo oo soo saaray coins-kan maaragtay noo keenay. Marka dadkaas marka waa la gataa sida dahabka oo kale ayaa inta loo gato ayaa lacag lagu beddeshaa. Macnaha tusaalaha ugu fudud saas waaye. Waa booska dahabka camal ay taagan yihiin oo digital ah. Marka dahabka markaa rabto inaad keedsato oo kale waa soo gadanaysaa lacag ayaa kusoo gadanaysaa dahabka meel ayaad dhiganaysaa. Hadhowdii markii oo maaragtay xoogaa oo shiid iyo wax aad dareento oo kale dadka qaar way sameeyaan dahabkay soo qataan markii ay soo gataan dahabka markuu qaaliyo dahabka naftigiisa wuxuu sameeyaa marna wuu kacaa marna hoos ayuu yimaadaa. Marka lacagahan oo kale waa sida dahabka oo kale oo digital ah waay. Marka dadka qaar waxay sameeyaan guriga ayay dhigtaan markuu dahabka u qaaliyoobo ama markay u baahdaan ama wax uu ku dhaco maaragtay u baahdaan oo kale suuqa ayay geystaan way gataan. Saas oo kale waa marka macnaha investment ayay sameeyeen dadkaas. Macnaha waxay investment ku sameeyeen dahabkii ayay investment ku sameeyeen lacag ayay gashteen meel ayay dhigteen. Qaaliyoobo dahabkii ayay gateen. Aniga tusaalahaas ayaan dhihi karaa. Marka sida macnaha haddii la qeexo oo la sharaxo saas ayaan dhihi karnaa waa sida dahabka oo kale. Marka adiga waxaad sameynaysaa Binance account ayaad sameynaysaa. Binance app-ka ayaa account ka samaysanaysaa. Marka waxaad gadanaysaa Bitcoin ayaad gadanaysaa. Hadda Bitcoin oo kale wuxuu marayaa 86,000 ayuu marayaa. Maanta markaan fiirinayay 88 ayuu xataa sii marayay. Marka naftigiisa 86, 85 ayuu gaaraa 1000 waa ayaa laga hadlaa. Mar ayuu wuxuu ahaa 0. uu ahaa dadaa markaas haystay oo 0.1 camal ku gatay. Maanta qofkaas millionaire waaye qofkaas 10 xabba haysto waa millionaire waaye. Wuxuu haystaa oo kale 500,000 ayuu qofkaas oo kale haystaa markuu 5 xabba haysto oo kale ama markuu 10 xabba haystay oo kale waqtigaas uu 10 xabba gatay lacag yar ku gatay maanta wuxuu haystaa 1 milyan ayuu haystaa. Marka saas oo kale waaye. Marka haddaa isla fiirino marka coins-yada waa kuwana. Coins-yada lagu sheegayo oo la gato waa kuwana. Maanta suuqa marka waa green waaye oo maaragtay marka analyzation lagu sameynayo saan ayaa loo sameeyaa. Suuqa markuu hadduu kor yahay hadduu hoos yahay saan ayaa loo sameeyaa. Haddaan fiirino marka boogan oo kale waa coins-ku ka mid yahay Shiba Inu, Dogecoin, Bebe kulli waxay ka mid yihiin coins-yada ugu meme coins ayaa la dhahaa. Waa coins-yada macnaha ugu raqiisan hadda oo la gadan karo. Marka aniga waxaan idinkula talin lahaa kuwa inaad gadataan oo iska dhaaftaan oo kale wuxuu ahaa Bitcoin-kii waa gaari doontiin tartiib waa fahmi doontaa. Laakiin hadda basic-ga waxaa fahantaa coins-yada yaryar $10 iska gasho Bebahan oo kale gado Shiba Inu gado Bogan kale gado. Hadda kan oo kale fiiri -15 ayuu kor aaday. Kan oo kale Bebe oo kale -15 ayuu aaday. Kan marka goormaa la gataa haddoo kale wax lama gato marka. Green-ka markuu yahay wax lama gato. Markuu coins-ka hoos yimaado oo minus-kan uu soo galay 7-kan oo kale hadda kan K-gan oo kale waa gaduud waa soo maahan markaan oo kale la gataa. Hadda dadkii oo waxaa faa'iiday oo hore u gatay markuu gaduudka ahaa dadkan kuwan hadda cagaarka markii gaduudka ahaa dadkii gatay hadda faa'iiday oo hadda lacaga u fuushay. Marka saas ayaa loo gataa. Binance ayaa account ka furanaysaa. Sida loo sameeyo waa sameyn doonaa course ayaan ka sameynaa. Binance ayaa soo dejisanaysaa App Store-ka kadib waxaa sameynaysaa waa iska register gareynaysaa sida Facebook camal iska register gareynaysaa verification ayaa sameynaysaa baasaboorkaaga ayaa gelinaysaa akoonkaaga banki salaam haddaa haysatid oo kale ayaad ku xiranaysaa meeshaas ayaa lacagta uga gadanaysaa hadhowdana isaga sii gadaysaa ma fahanti. Marka saas ayaa la sameeyaa. Marka coins-yada waxaa waaye waa long term iyo short term ayaa jiro. Long term-ka waxaa waaye in maaragtay 2 sano 3 sano aad iska sugto iyo short term inaad 2 bilood 3 bilood aad iska sugto. Marka waxaa fiican investment marka la sameynayo waxaa fiican short term inaad iska sugto. Markuu lacagta ku kordho inaad la baxdo lacagtaas saas ayaa aniga idinkula talinaya hadduu Ilaah yiraahdo. Marka coins-yada mar ay kor ay aadaan waa riskigooduna wuu badan yahay.
riskiguna wuu badan yahay, inta badan dhulka ayuu aadaa, korna wuu aadaa. Marka lacag badan ha iska gelinin, lacag yar oo aad ka sabri kartid iska geli. Ani saasaan dadka kula taliyaa, saasaan is leeyahay oo saasaa fiican tartiib tartiib inta aad ka fahmi